wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta tababar soo xidhay ururka dhalinyarada ee wakiil kulankani oo ka qabsoomay xarunta wasaaraddaasi ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda dastuurka agaasimaha guud iyo agaasimo waaxidyada kala duwan ee wasaaradda dastuurka waxaana ibafurka kulankani hadalla ka soo jeediyey agaasimaha waaxda xalinta khilaafaadka iyo la taliyaha wasiirka ee arrimaha sharciga ahaana macalinka bixinaya tababarkani axmed maxamed aadan iyo maxamed cabdalle cilmi waxaana ay ammaaneen dhallinyaradani fahmay qiimaha dastuurka iyo dadaalka ay u galeen barashadiisa aad iyo aad baan runtii guud ahaanba ugu mahadnaqayaa dhallinyaradan iyaguna sharafta badan ee wakhtiga geliyey iyagoo ubaxii dalka ah fahmay inuu dastuurku yahay wax lama taabtaan ah oo ay tahay xaqiiqadii qofka dhallinyarada ah inuu wax ka ogaado sharciga dalka u yaala iyo dastuurka dalka waa buugga yar oo waqti yar oo kooban kugu qaadanaya ninka dhalinyaro ah amba inta dhalinyarada ah inay akhrido maanta waxa sharaf u ah wasaaradda inay nala joogaan dhalinyaro runtii uu ka muuqdo dadaal u heelan inay qaadaan hamiga iyo fariinta uu qarankani ka leeyahay in dowladnimadiisu ay noqoto mid taabagala oo sii socota mustaqbalka insha Allah sidaa darteed muddadii koobnayd ee aan wada joognay runtii waxaan ka arkay inay yihiin dad u qalma in la geliyo tacab ka badan inta hadda ay wasaaraddu u qabatay waxaa iyaguna goobta ka hadlay xubno ka mid ahaa kooxdani dhalinyarada oo sheegay sida ay uga go'an tahay barashada dastuurka iyo ogaanshaha xaqa uu dalkoodu ku leeyahay iyo ka iyagu ku leeyihiin wadaniyada waa shayga kaliya qofka u sheega wuxuu yahay iyo wuxuu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay waxaan rajaynayaa inaan horumar u noqon doono dhalinyaro badan oo dalka maanta waxyaabo kale ku jeeda annagoo maanta garanay inaan wasaaradaha dhex tagno maadaama ay naga horeeyaan aan noqono jilbownu noqdo jilbow jiil bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland Jamaal Cabdi Muuse oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa iftiimiyey waxyaabihii la baray intii uu tababarku socday kooxdani dhalinyarada sharaf weyn bay noo tahay ka wasaarad ahaan inaan maanta xafladan isugu nimaadno inagoo shahaadooyinka qalinjabinta guddoonsiinayna dhalinyarada tababarka dastuurka iyo wadaniyada muddada u socday ee ururka wakiil runtii waxaad barateen cilmi muhiim ah cilmiga idinku aad sheegteen inuu dhismaha dalnimada iyo dowladnimada iyo dimuqraadiyaddu muhiim u yahay waxaad wax ka fahanteen tilmaamaha guud ee qaranka waxaad barateen mabaadi'da guud sinaanta muwaadiniinta iyo waajibaadka muwaadinka laga rabo waxaad barateen muddadii tababarkan idin socday xuquuqda qofka xaqa raay dhiibashada waaxaha dowladnimada iyo dhammaan asaaska dowladnimo ee ku sugan dastuurka jamhuuriyadda Somaliland maxamed xaaji aadan cilmi wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Somaliland oo gabagabadii halkaasi ka soo jeediyey khudbad dhinacyo badan ugu hogga tusaaleeyay dhalinyaradii tababarkani loo soo xulay waxaana wasiirku bogaadiyey da'yartani baratay dastuurka jamhuuriyadda Somaliland waxatiin runtii dhowr difcadood baanu dastuurka barnay laakiin way kala duwanaayeen intaan xasuusnahay idinka iyo difcad kale oo idinka horreysay dhalinyaro sidaa isu soo maamushay oo iyagu waxa weeyaan gartay oo xafiisyadoodii maxaa dhahay aan runtii tagnay ayaa ka mid waa mid runtii idin dheeraada dhammaanteen waajib baa inaga wada saaran xil gudashada xaqa loogu leeyahay qof kastaaba dowrkiisa dalkeennan iyo qarankeennan inuu ka qaato haddii uu mar wiil iyo gabadhba mudakar noqday oo uu maankiisa iyo caqligiisa ka gartay inuu yahay muwaadin u baahan inuu dalkiisa sharcigiisa wadaniyadiisa ownershipkiisa iyo lahaanshaha dalnimo inuu leeyahay oo aan cidina ka lahayn ee uu horu mariyo inta kaga beegan aad iyo aad bay u muhiim tahay waan idinka mahad celinayna weliba waxa ku sii habboon qofka u da'da yar la sidiina wiil iyo gabadh ee maanta waxa weeyaan mas'uuliyadda intaa la isa saaray waxaa laga malaynayaa biri iyo saadama mustaqbalka dhow inuu noqdo hogaamiye sax oo ku hogaamiye bulshada Somaliland halkii saxda ahayd ee runtii roobka iyo rayska lahayd
ee reerku u baahnaa inuu u guuro inaad noqotaan kuwii u rari lahaa qaranka. ugu dambayntii waxay wasaaraddu dhallinyaradii tababarkani loo soo xidhay guddoonsiisay shahaadooyin halka macallinkii tababarkani bixinayeyna isagana lagu maamuusay shahaado sharaf.